daawadayaal dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii garnaqsi ee toddobaadlaha ahaa. barnaamijka garnaqsi ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray iyo dagaalkii ka horeeyay ee 64. waxaa sharafna noo ah in uu marti noogu yahay barnaamijka garnaqsi Generaal Maxamed Nuur Galaal oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya muddo dheer ka tirsanaa ilaa uu ka gaaray darajada generaal. Generaal Maxamed Nuur Galaal sida uu noo sheegay waxa uu ku dhashay deegaanka Ceelbuur 1938 dabadeedna waxa uu ku koray oo ku barbaaray dugsigiina ku dhigtay iskuulada noocyadii kala gedisan heerarkii waxbarashada ee kala gedisnaa magaalada Muqdisho. dabadeedna waxa uu ku biiray ciidamadii qalabka siday ee Soomaaliya. Generaal Maxamed Nuur Galaal ku soo dhawaaw barnaamijka garnaqsi ee telefishinka Shabeelle. bismillaahir rahmaanir rahiim. waa ku dhawaad adeer maaragtay aad ayaan idinkaga mahad celinayaa inaad ugu sharaftaan inaan idinkala qayb galo barnaamijka magacaas leh. hadda wixii aan ka ogahay waa sheegaya insha Allah. waxaan rabnaa generaal runtii jiilasha soo socda in wax looga tago oo maadaama rag badan baa dagaalka ku howlanaa wax geeriyooday iyo wax nool intaba waa leeyihiin. generaal maxamed cali samater allah u naxariista wuu geeriyooday. maxamed siyaad barre allah u naxariista asna ma noola. raggii aada muhiimka u ahaa dagaalka ayay ahaayeen. adiguna sida la ogsoon yahay waxaad ahayd xubin firfircoon oo aada magaciisa loo sheego xilligii dagaalka inkastoo dad badan ayna garanayn kaalinta aada ku aadaneed. marka bal noo sheeg marka la yiraahdo yacni ugu horeyntii horta adigu sideed ciidanka ugu biirta? bismillaahir rahmaanir rahiim. waxa weeye anigu waxaan wax ku soo bartay meel la dhihi jiray college military oo ah military boarding school waxaan la yiraahdo. meeshaasaan ku jiray intermediate-kii markaan dhameeyay galaaskii 8aad ayaa awal waxaan rabnay ilaa iyo secondary-ga inaan socono ayaa la yiri maya waa halkan idinkugu eg tahay waxaad noqonaysaan booliis. annagoo xaynaha waxaana la geeyey iskoola boolisiya 9 bilood ayaan ku jirnay meeshaas. iskoola boolisiyahan hadda ku horay 9 bilood aan ku jirnay. waxaana baranaynay wax la yiraahdo technique professionale de polizia, professional technique of the police, farsamooyinka booliska. marka waxay ahayd 57 ayay ahayd. 58 baan ka soo baxay anoo 2 alif la noqday. markaasna waxay ahayd oo la kulanay iyadoo booliiskii qaybtii booliiska ee gobolka Banaadir la Soomaalida lagu wareejinayo Somalization wax la yiraahdo oo Talyaanigii iyo maamulkiisii laga wareegayo. stationadii iyo magaranaysa qaybihii iyo wax la dhihi jiray tenancy polizia. marka waxaan xusuustaa qaybta booliiska ee Banaadir waxaa loo dhiibay Maxamed Siyaad Barre oo gaashaan la ahaa markaas 58 ayuu gaashaan la ahaa. waa gart tenancy polizia wax la yiraahdaa jiray oo ka hooseysa divisionka booliiska ka hooseysa oo iyadana waxaa loo dhiibay Cabdullaahi Yuusuf oo markaas ahaa 2 xidigle. waa gart aniga oo 2 alif la ah oo 20 coach sano jira waxaan noqday taliye saldhig booliis. markaasaan noqday. waxaan bedelay marshaale talyaani ah ayaan bedelay. stationkaas waxaa la dhihi jiray Beyt Ras. wuxuu ku yiilay meesha hadda maxkamadda sare ay ku taalo
iyo maaragtay iyo wasaaradda maaragtay cadaaladda iyo halkaas station ay ahayd booliis baytiraasa la dhihi jiray halkaasaan ka noqday taliye adoo laba alifla ah anoo laba alifla ah dabadeedna markaan 6 bilood camal joogay ayaa waxaa la ii bedelay dhinacii ciidamada maaragtay gruuba mobile la dhihi jiray waxaa jiray ciidamadii soomaalidii hore oo inta 4 batalyan ay ahaayeen inta la ruqsaya batalyankii waxaa laga reebay horin laga reebay 4tii horewada la isu gooyay gruuba mobile la dhihi jiray sidii ciidan ay ahaayeen halkaas waxaa jooga mijir talyaani ah xukumay oo ah taliye xigeenka booliiska marka Soomaaliya ciidan booliis oo kaliya markaas leedahay bes ay leedahay military ma jiro waana 58 waa 58 waxaa military ugu dhow 4taas company oo structure-kii hore iyo tababarkooda iyo hubkoodii sidii hore u haysta gruuba mobile la dhihi jiray marka meeshaas waxaa mijirka xafiiskiisa ugu hooseeyey nin laba xadiglaha talyaani ah ninkii baan bedelay ninkii baa la Italia loo diray laba xadiglaha talyaaniga kaasaan bedelay Somalizationkii socday ayay ka mid tahay 10 sano oo loo diyaarinayay xornimada lagu jiraa marka halkaasaan ku dhamaystay maaragtay intii xorriyadda ka horreysay oo dhan intii aan la qaadan intaa halkaasaan joogay maalinta xorriyadda la qaadanayo ayaa ciidanka xoogga dalka waxaa ku dhawaaqay Cabdullaahi Ciise Allah u naxariistay ciidamada xoogga dalka ninkaas aasaasay iyadoo ay gaalkii talyaaniga meesha joogay oo administratoraha ahaa oo veto lahaa wax walba veto uu diidanaa diidmada qayaxan oo lahaa uu diidanaa ciidanka in la dhiso isagoo ku sababeynaya dhaqaale iyo waxyaalahaas waxaa kaloo diidanaa xataa baarlamaankii waagaas jiro Soomaalida wuu diidanaa iyadoo dhaqaalo lagu marmarsoonayo laakiin Cabdullaahi Ciise oo ku adkaystay anaa dhaqaalahayga u doonanayo yiri marka gruuba mobile baa saldhig u noqday raggiinii booliska ahaa ayaa xaggii loo wareejiyey ciidanka saldhig u noqday 2,000 oo nin hal qoro uu yiri oo Cali Boog ayaa la dhihi jiray waa la qoray 6 bilood ka hor intaan xorriyadda la qaadan ayaa ciidankaas la tababaray maalintii xorriyadda la qaadanaya 1 Luulyo waxaanu lahayn labadaas kun iyo kunkii gruuba mobile 3,000 oo southka ah iyo waqooyiga ay jirtay 1,000 nin oo la dhihi jiray Scouts Regiment oo Ingiriiskii uu ka tegay 4,000 aan lahayn dagaalkiina 4,000 oo maaragtay nagu qabsaday marka ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya 4,000 lagu asaasay 4,000 lagu asaasay dabadeedna taliya loo magacaabay marka taliya loo magacaabay General Daawud ayaa noqday Daawud laga dhigay oo general noqday ku xigeenna General Maxamed Siyaad Barra u noqday habeenkii xorriyadda lagu qaadanay habeenka ka horreeyay maalintii ka horreysay ayaa waxaa naloo keenay Daawud oo gaashaan la sare ah iyo Maxamed Siyaad oo gaashaan la dhexe ah oo midna uu yahay taliyaha midna uu yahay ku xigeenka habeenkii baa xorriyadda la qaadanayay ayaa General Daawud wuxuu noqday sareeyo guud Maxamed Siyaad wuxuu noqday gaashaan la sare markaas 1 Luulyo saasay noogu soo baxday anigana 3 alif la noqday oo aniga hal alif lagu daray anu ma rabin inaan ciidamada noqdo inaan ruqsaystaan rabay markaan iskool aan dhameeyay markii ma aragtay intermediate soo dhameeyay 2 sano oo waxaan galay oo galabtii aan dhiga jiray oo secondary-ga ahaa laakiin waxaan arkay in waqtigii dhamaanayo iyadoo secondary-gu ay dhamaanay markii waqtiga 12 ciidamada aad iska deysatay ma waxaan tagay iskool
iskool la dhihi jiray preparazione politica amministrativa oo funcionaariga Soomaalida ee sibilka ay ka soo bixi jireen oo sanadii Talyaani lagu dhigo Talyaani lagu dhigo xawl waa Talyaaniga kaasaan private ahaan u galay adoo askarigaagii ah anoo 3 xalifla ah waa baasay waa ku baasay diploma waxaan helay u dhiganta secondary oo waliba runtii aad iyo aad ay aqoon fiican meesha ayaa iga korortay aqoon fiican ay iga korortay ciidankaagii waad sii wadatay markaad diblomadii qaadatay diblomadii markaan qaatay ciidankan soo watay waxaan isku qoray Istituto Universitario oo jirtay oo maasha jaamacaddu ka soo bilaabatay Soomaalida maxad heer jaamacadeed oo Soomaali ka furnaa markaas aad isku qortay oo 2 sano labada sano galay waxaan dhameeyay 62 ayaan dhameeyay 7 material la dhiiba imtixaan ayaa la galaa ilaa ay dhamaadka aniga waxaan dhameeyay 35 imtixaan galay iyadoo 2 ay dhiman tahay oo isleeyahay bari ama saa dambe aad gash markaas la xidig laana oo xidig laad noqotay ayaa ma aragtay inqilaabkii la isku dayay Hargeysa dhacay 61 December baf halkaas la igala booday nimankii oo lagu bedelana kii Xasan Kayd oo taliya oo kaabaha ka ah inqilaabka meeshii uu jooga la geeyay xamar baa laga waday xidig la tahay Hargeysa lagu geeyay horta iskoolkayga oo jaamacadda halkaas oo iga banjaray 2 imtixaan ay iga harsanayd waxaan rabay la igu qanciyay ma aragtay in haddii aan 2 imtixaan dhiyo in la ii diro anoo xidig la baado meel la yiraahdo Talyaaniga ku taal oo sharciga lawyer inaan noqdaan rabay anigu lawyer inaan noqdo ma rabin askarta ma rabin General Daawud Allahu naxariisto iga yeelay inaan ruqsaysto laakiin wuxuu siyaad iskay hortaagay janankeena ka dhaadhiciyay marka halkaas macnaha iga banjartay wixii aan xagga sidaas baad ciidankii ku gashay marka kuugu xigay marka Hargeysa la geeyay 3 sano markaan joogay oo tahay tahay 63 ayaa ma aragtay waxaa jiray qonsul Ingiriiska meesha joogay qonsulka Ingiriiska Dickinson la dhihi jiray waana xusuustaa ayaan xiriir baan lahayn xiriirku wuxuu ahaa baxarkee meesha aan anigu xafiiska aan fadhiyay ayaa wuxuu u dhaxeeyay public oo dhan iyo taliska wax walba halkaas ka soo dhacayeen markaas taliyaha ma aragtay qaybta ma aragtay ayaan aniga halkaas waxa ku soo dhacay marka waxaa jiray wax la yiraahdo corriere diplomatico boojka diplomaatka oo qonsulkaas rabo inuu diro iyo midkii Talyaaniga asna jiray ayay waxay ku diray jireen dayuuradda kaliya oo ay jirto oo amida militariga marka aanay ii soo mari jireen halkaas qonsulka Ingiriis oo isku saas baad xiriirka ku yeelatay aad nin fiican buu ahaa wuxuu ii sheegay in Ethiopia ay rabto inay qabsato gobolada waqooyi annaguna haddaan Ingiriisna weerma yeelayno waa gartay hayeesadii wax yeelaysaa waa ka shaqeynaynaa markaas waa intaadan sirdoonka ciidanka u wareegin ma jiro rusha inaan aadaa ka sokaysa marka wuxuu yiri wuxuu keenay waxay noo keeneen 5 taangi
oo la dhihi jiray comet tank ingiriiskaa idin keenay ingiriiskaa noo keenay wax ka horna taangi ma haysataan ma jirin kow aan arkayno madfaca 77 milimitir ah saaran wuxuu rabay ingiriisku inuu balatoon waayo kooxdaas inuu haddana markii si fiican loo barto inuu balatoon kale ku daro mid saddexaad ku daro horin ay noqdaan taangi oo 16 xabo ah alla ma qadarino markaan 3 joogno 3 taangi markaan 5 joogno waati xiriirkii ingiriiska ee la kala goostay arrintii hawd iyo waxyaalahaas waa gartay marka annagoo 5taas taangi haysana iyo 6 madfac oo talyaanigu keenay isla hadleen talyaaniga iyo ingiriiska ayaa oo 6 madfac madaafiic fiican ahay iyo 4 kun oo ciidanka iyo 5 taangi 2 kun askarta waqooyiga waqooyiga 2 kaliya iyo dhowr kale halkan jooga afarta kalena meelaha labada kalena halkan ku mashquulsanaay baydhabo iyo feerfeer iyo waxyaalaha xooggeeda waxay soo saartay waqooyiga Ethiopia 10 kun oo nin ay keeneen oo ciidana gaaska saddexaad la dhahay amaan andoom nin la dhihi jiro Eritrea oo generaal oo aad iyo aad u waalan ayaa watay oo dhahaya wiiga soo socda berbera ayaan qabsanaynaa waa gartay warkii waxay wataan 10 kaas noonin iyo taangiyaal yar yar oo Mareykanku siiyo la yiraahdo M24 oo laakiin madfacooda uu yar yahay waana imsa taangi ay wataan markaas 24 xabay wataan waa gartay laakiin madfacoodu ma karo taangigan 4 taangida haysataan 5 aan haysan 5tiina ka tayo fiican ayaa ka tayo fiican mid baa naga xumaaday midkii wax lagu bartay 5tii starterkii naga xumaaday marka 4tii soo hartay 2 tog wajaalaan geynay 2na ina guuxa oo labada meelood ay rabaan inay Berbera Hargeysa ka soo galaan marka ina tog wajaala waxaa jooga Abuukar Gacal muddo oo markaas mijir ah ina guuxana waxaa jooga Salaad Kabayre salaadna markaas oo asna mijir oo gaashaan la sare waa gaashaan le caadi gaashaan 2 gaashaan la way aduna xidig la taawli anigu 2 xidig la taa marka markii ay weerar ku soo qaadeen labadan taangiya meel wala frontiga ka soo qaaday eberka dhigta baalay yar yara dib ay u gurteen marka waxay goosteen inay frontal badan ugu furaan maadaama ay naga ciidan badan yihiin front saddexaad ay ugu fureen meel la dhigi jiray Dabagoryaale ayay ugu fureen waxa joogay Doonyaale Ibrahim Doonyaale ayaa joogay Doonyaale meel uu joogay Salaad Gabar meel uu joogay Abuukar Gacalna meel uu joogay xarunta ayaa jooga nin oday ah la dhihi jiray Jaaca oo Muuse iyo Sabantar xaruntii xamara xarunta Hargeysa Hargeysa aniguna halkaasaan jooga waxa jooga odaygaas iyo Sabantar iyo aniga waxay frontiga Dabagoryaale noogu fureen waxay rabeen inay inta jiiraan waxay joogto dhowr boqol oo nin ay joogto oo ciidan oo aan technique haysan 4-5-6 waxa yar yarkii ay wateen inay inta jiiraan burca qabsadaan ay rabeen burcana halkaas Berbera ka galaan saasay strategy qorshahoodu marka waa la iswarsay maxaa la qabtaa odayga aqoonta waa yarta markaas aqoonta waa yarta waxa uu fikir oo shakhsigu alla ku abuuray mooyee daawudana taliya idin xamar ka soo hadlaya wuxuu yiri Jaac Muuse maxaan samaynaynaa haliyar markaas uu yiri
haddayna soo jiraan waa ka baxaynaa magaalado gorilyan gelaynaa yani dagaal jabhadeed ayaan gelaynaa documentiga iyo waxa dhan oo gubaynaa waxaa hadla sabatrana wuxuu yidhi waayahay waayahay aniga waxaa seewa magaalada maan uga baxaynaa magaalada maan xabashada uga baxaynaa waxaas waa aqoonahata saas oon lahaana ma jirin ra'yi baad sheegay ra'yi aha waxaa yidhi ina guuxana waa ka soo baxaynaa tagujalona ka soo baxaynaa magaaladana daafacaynaa afartaas taangi haddaan haysano iyo 6daas madfac weligeedna ma soo mari karto laakiin taliskanu meeshooda noo ahaanaya magaaladana dadkana waa kicinaynaa wixii qoryaha oo badan oo haysano yar yaroo jajaban dadkan siinaynaa bushti bashta meel walba ha looga siiya annagoo intaas isku hayna ayaa daawud soo hadlay war maxaa idin qorshaa odagii hadlo wuxuu yidhi haddee saasaan yeelna inaan jabhadaynaan garanno saasaan alsamantaraale jaac muusaa dhahaya markaasuu hadda saasaan isku raacnay laakiin fikrad waxaa jirta uu yidhi dhahaysa aan tawajal iyo inagu wax ka soo baxno magaalada aan daafacano ma garanaysaa 2 taangi iyo 6 madfacana aan magaaladan ku daafacno fikraddaas yaa keeno yidhi saleex 2 xidig lahaanaa wada taasaa la yeelayaa yidhi taas waa garta marka aniga waxaan la yaabanaa odaga shacab mase waxba ma oqoon garab saardaro ahaa laakiin ninkan calim samantar ah intaas oon kusoo jiro oo iskoola militaarana ka soo baxo talyaaniga inuu ku qanco waxa sidaas basiidka ah waxa odagu sheegay aad iyo aadaan u qawaday waa gartay maxaa ku xigay marka waxaa ku xigay qorshahaas xabashida sidii laga yeeli lahaa oo inay burco qabsato marka taangigii waa ma soconaa starterka ka xun waxaa jiray nin la yidhaahdo cali nuur oo halgankii markii cabdullahi xaysan uu yoonk joogay qarash badanaa ku baxayay nin taajiro wuxuu ahaa america degan oo aad iyo taajir reer waqooyi ah oo reer waqooyi ah cali nuuraa la dhihi jiray anigu hadda magaciisa waa maqli jira markaan yaraa cabdullaahi ciise cali nuur iyadoo la leeyahay ilaa ninkiia magaalada jooga hargeysuu jooga markaa taleefon soo diray iridow yimid warqaduu wataa warqadaa la ii keenay iridii oo xarunta xaruntii militariga hargeysa warqadaa la ii keenay waa fiiriyey waxaa ku qoran oo soo saxay cabdullaahi ciise warqadu jalad wuu xoog leh ku qoran tahay talyaanina oo ku qoran tahay oo leeyahay ninkan dowladda dhan waxaan amrayaa ninkaanu meeshuu yimaadaba si sharaf leh oo maaragtay xushmada ra-iisul wasaarahoo kale in la siiyo yiri wax alla wuxuu rabana loo sheego waxna aan laga qarin warqadaa saasoo ku qoran cali nuur aniga waa garta kii inuu yahay la sheegaya waagi la soo daayay bal baabuur ama u diray iridan ka soo way ka fogtahay irida iyo xafiiska kala fog yihiin baabuurkii aan u diray waa la keenay haya adeer waxaan rabaa uu yiri taangi uu maqlay taangiga taangigii idinka halaabo maqlay uu maqlay wuxuu yiri taangiga yaa sameeyey waxaan ingiriiska sameeyay kuma taangi baa la yiraahdaa birtii aaw xawaato yiri waa kanu yiri birta mid MTO la yiraahdo meesha joogan u yeeray waxay war birtii keen telefoon inta u diray waa hal weyn oo shaash intaas leeyahay asagoo la orday u keenay wax taraahada madane baawarka ay saaray guriga ay geeyo baawarka aan saaray guriga aan geeyo afar bere ka bacdi uu iga soo wacay magaalada baawarka ay soo dir haye u diray bishii cusub oo wada birtii cusub oo kale ground agency meel la yiraahdo oo ingiriiska ayuu ka soo gaday awood u leeyahay inuu waxa soo midna ingiriiskuna waa ogaa inta taangaalkaas garanaysaa way soo siiyeen waa qaadnay meeshaan taga isagoo taagan ayaa birtii la geliyey silifka lagu dhiftay cirka u booday
magaalada askartii oo dhan oo maaragtay xarunta joogto dhan isku kacday farxad markaas waxaa la qaaday hees waagaas casri ahayd oo maalmaha soo baxda oo geeshka iyo u guulaysta la yidhaahdo odagii waa iska ooyey ilin calnuur ilin hees markuu baxaya iyo markii mar walba waxaan u qabanaynay salaan ra-iisul wasaaraha oo kale aan u qabanaynay maamuusa u samaynaysa maamuus weynaan u samaynaynay marka markiiba maqribkii markay tahan ayaan saa naloo arag ayaan baabuurka waa jiidnay taange baabuur weyn oo iskaama la yihahda noo yeelay oo xoog badan dagaalkiina markaas ina gooxaabaan rabna inaan geyno okay diyaar garowgeed ku jirtaan dagaalka waa jiidnay 10 kilomitr markaan magaalada dhaafinay san loo arag ayaa baabuurka aan kicinay waa la gaday cawanimo xaggii tegey 10 kilomitr markuu magaalada u jiro la damiyey baabuurkaa lagu jiiday frontlineka la geeyey waa la daday subaxdii ayay weer soo qaaday markaasna waa 64 waa 64 dagaalkii 64 dagaal bay soo qaaday bush afartii yar ka ahaydaa soo hormartay taangiyadii marka saddex markiiba kaga tuuray taangigii kuwii Etoobiyaanka xabashida indhaha waaga ku bariyay markuu ku bariyay inta kalena carar annaguna askartii wixii intii joogtay doonyaal iyo xisinta iyo halkii taangi dabada laga galay meel halkaas isku buurteen wadaxum ay wal ku yimaadeen isku buurteen annagu xuduudda ma dhaafin tabartayada iska yareyd horta halkaas markay marayso waana markii la kala saxeexday heshiiskii ruushka iyo Soomaaliya 3 bilood ka hor la kala saxeexday marka nimankan waxay ka gaarsiinayaan intaan hubku imaan hubka ruushku intoonan idin imaan marka ruushkii asaga laftiisu waa galgishay oo ka xumaaday xayla salaaso toos u hadlay Khrushchev jooga waagada oo hadda asna qaraf kala qaraf Trump kaanoo kale xayla salaaso haddaada ka noqon oodan ciidamadaada kala bixin Soomaaliya wixii kugu dhacada waa meeshaan isku arkaynaa wallaahi jigjigan waxaan soo imaanaynaa Addis Ababa hadda xayla salaaso waa faahim buu ahaa faahim ciidankiisii la baxay balaa ciidankiisii la baxay marka cadaadis international oo siyaasadeed ayay Ethiopia ciidankoodii xuduudda kala baxeen dagaalkiina joojiyay midda kalena way arki weydaadee access tawartii waa ku tawar beeshay maxaad ka dhaxasheen dagaalkaas markaas maxaa keenay maxaad ka dhaxasheen maxaa ciidankii militariga markii dagaalkii dhamaaday 64 qiimeyn ciidanku ma isku sameeyay qiimeynta waa la isku sameeyay ma aragtay dawladda ilaa 4,000 oo ciidan iyo 5 taangi diyaaradana ma lihidin markaas ma jirto Hargeysa nagu soo weerareen iyagu waxay lahayd dawladda oo Afrikaba qolada ugu horeysa dawladda lahayd ay hal yar oo laakiin marka 10,000 oo ciidan in ka badanna way soo galiyeen waa soo kiciyeen Hargeysa nagu soo weerareen dawladii 4 xabo ما يلا واحد بي عبارة ميلا كتور تورين وحوينا effective وما يرهين واسكن عودين لكن بانك يدك كردين وعبسي قليل maxaa ku xigay marka arimahaas markii dagaalkaasi saa ku joogsaday dhanka militariga maxaa dhaqdhaqaaq laga sameeyay wax ka tansaasoo kale waxa soo bilowday hadiiba wixii militariga oo ruushku maaragtay iyo dhaqdhaqaaq hore oo ka dareenay xataa maraakiib oo dekada waxaa la dareemay in baahi loo qabo hub in la helo iyo khubaro saraakiilna la tababaro marka ciidan badana loo diray ruushka anigu marka waa xamar baa waxaa la Hargeysan ka tagay xamar baa la geeyay xamar xafiiskii maxamed siyaad markaan
taliya daawud waa dhintay allah u naxariisto allah u naxariisto allah u naxariisto waa gartay taliskiyaa lagu soo wareejiyey ha halkaasaa la ii soo wareejiyey markiiba waxaan aaday ruushaa lagu diray maxaad soo baranaysa markaas military intelligence sirdoonka militariga marka hore hadee waxaa mid tababar buuxo oo dagaalka marka hore lagu siinaya marka taas kasoo baxdeeda la gelayaa bahashaan kale marka waxaa ku takhasustay sirdoonka militariga waxaadna tahay markaas marka meeqa xidiglaa tahay markaasna kabtan baad noqotay 3 xidigle hay marka waxaan kusoo takhasusay wax la yiraahdo field and strategic intelligence ayaan kusoo takhasusay midda ciidamada tababarkooda ka sokow 5 sano ay ugu qaad 5 sano 5 sanaad soo ku jirtay marka habar baan imid jabhadeynta iyo sida jabhadaha loo tababaro iyo sida xogaha loo siiyay iyo ku jiraan kulli waa ku jiraan waxa ku jira intelligence strategic intelligence kay ku jiraan field ku wixii militariga ku xisaabsan waa dagaalada ciidamada cagaba strategic intelligence waxa waaye guerrilla counter guerrilla iyo espionage oo saddexda xogaha raadintoodii aad complicated u tahay waad soo dhamaysay marka soo dhameeyay xamar baan imid sanadkee timid xamar 9 waxaan ehelaa waxaan imid 69kii dhammaadkiisii aad ku soo noqotay waa intaan inqilaab ku dhicin uu wadaa waa gartay welina waxaa tahay 3 xidigle kabtanaana laakiin hadde waxa madaxayga ku jira yaab anaa la yaabanaa ilaa wax badanaa soo baratay markaan saraakiisha la shirinayo oo maalinta khamiistaa la shiri jiray oo wax la sheegayo waa la yaabi jiray nimanku waxay ku hadlayaan waad dhegeysanaysaa waa dhegeysanaya waa joogaa waa la yaabi jiray dhalinyaraa tahay odayaali ka dhamaataa u haystaa eber laakiin maxaa dhacay practical kaa maqan theoria buuxdaad leedahay laakiin practica ma haysid anoo saas dadka ula yaaba inta la bedelaa baydhaba lay geeyey markaasa la abaaduulaha qaybtaa tahay meel alla meelaan ka bilaabo aad garan weyse garan waaye odayaalkii maaragtay aad la yaabeysay iga fiicnaa laakiin markii aan muddo joogay waa ii furfurmeen wixii waxaad iswaafajiday wixii aad soo baratay iyo yani shaqadii dhabta aheedee goobta shaqada taallay waa saas wixii aan fahmay markaas waxaa laga cabsanayay in xabashadu isku daydo inay kacaanka caburiso oo isa weerar soo qaado intuusan xididaysan marka heegan aad ku jirteen heegan ku jirnay qiyaastii markii la qiyaasay waxaa la yiri beledweyne ay ka soo geli karaan markuu ii bedelay halkaas waa ii yeeray maasha hadee soo taliyay ciidanka ah inqilaabkiina sameeyay weli lama samayn markaas waa sameeyey markaas inqilaabka markuu dhaca kadib uu kugu yeeray marka awal waxaan joogay xafiis xuma la dhihi jiray wardoonka sirta oo ina dafle joogi jiray oo wiilkiisa ah hadee oo sheema wax ogyahan aan la arag waxaan la yaabi kuwan la yaabi jiray ku jira markay hadlayaan iyo markay shaqaynayaan kii baan isqabanoo xoosyada dee waa wiilkiisii waaye inta ganaax u baydhabo ii bedelay baydhabo sababtaasa lagugu diray saasaa la igu diray 19 maalmood inta ganaax igu dhiftay ayuu baydhabo ii diray baydhabaan joogay oo dee waa la arkay wuxuu maaragtay qoftu inay diyaarsan tahay marka uu ganaaxayo weli inqilaabka ma uusan samayn marka baydhabo joogaa bahalka uu ku dhiftay inqilaabkii
kabacdi waa ii yeeray warni wuxuu yidhi wixii hore waa tageene haddeer aqoontaada haddaa loo baahan yahay orod bay waxaad tagtaa beledweyne oo meeshaas amxaarada naga soo weerarayse hadda meesha adaan kuu diray oo waxaana jooga mid reer ismaaciil boqoraho oo gaashaanle dhexa ah anna gaashaan laanaha markaas ninkaas waxba ma ogey war isagu waa talyaani kasoo war talyaani xoole ma ogo yiri orod meesha tag ciidamadana aada u kala yaqaanaa markaas bes waa kii haddiiba waa la bedelay oo inqilaabki salaad gabayri ayaa saameeyey meesha ana marka taliya ka noqday hiiraan qaybtii beledweyne hiiraan waxay ahayd qurac jooma mataqaana ilaa iyo boosaaso inta ka dhexaysa meeshaana mas-uulka markaas ciidanka tiradiisu imsay la-agta tartiib waa kor adiga markaas ilaa oon dhowr iyo 10 kun waa layaa waa la gaarsiiyey 20 kun waa ku dhow yahay haddana waxaa soo bilowda maaragtay taangiyaalkii la dhahayay T-34 la dhahayay oo ruushka kuwii hore ah taangiyaal hore laakiin Afrika ka adkaa meel kastaba ilaa wada beerka meeshaas qaybtii markaan si fiican satalad uga dhigana annaga aan isku kalsoonina gashay inayna soo weerari karin ayaa markaa haddana xamar la ii bedelay iyadoo militariga xoogga haysta xoog leeyahay hoggaankaas leegeeda sahanka wixii annagoo halkaas joogna hoggaankii sahanka joogna ayaa waxaa yimid ayaa ruushkiibaa u ordayaa yimid saraakiishoodii khubradoodii ay idin yimid nin waxaa yimid boolid burooga xubinka ah oo admiraal ah oo ah ninka filiidka midowga Sovieti iyo Warsaw Bag oo dhan ninka xukuma ah ayaa oo message wada fariin wada yimid waana sanadkeed maraysaan markaas ya sanadkee way markaas sanada waa 64 oo 74 markaas wuxuu casuubay Samatar iyo aniga waa la yaabanaa dad badan oo iga ansaanaysan marka gaashaan la saraana waxaa jiro abaandulihi oo ah Cabdalla Faadir oo sareeya gaas ah ahna member oo golaha sare lama yeerin ana la yeeray markaan meeshii waxaan arkay Samatar oo fadhiya bas safiirkii baa sheegay wixii inshallah admiral ninkan waxa waaye gaashaan la sare Maxamed Nuur Galaal waana taliyaha hoggaanka sirdoonka ninka inta tilaabo hore u soo qaaday ayuu yiri oo afruush ku hadlo wuxuu yiri war waa shakhsiga ugu xiisaha badan ee national army-ga ku jira kii ruushka dhahay ninkii yimid admiraalka hadalkaas waa ay dhibay aniga markaas Samatar fadhiya nin waxaa u muuqda marka ruushku ay wasaan asagaba waa baqda marka waa saxay kii uu sheegay hadda oo sheegay odaga loo sheegaa marka halisad galaysaa baa istiri adigu ninkii cawaday waana marti qaaday cawaday casho uu sameeyay ninka waa iska burqaday waa gartay muxuu idin sheegay marka wuxuu noo sheegay in maaragtay balanskii istaraatiijiga ah ee Warsaw Pact iyo NATO uu xagga NATO u janjeersaday markii ayaga laga saaray Masar ruushka oo Amerikaankii la wareegay in isbahaysigii ruushka laga itaal rooraaday ayuu idin sheegay oo ciidamada wuxuu yiri hadda haddii dagaal qarxo waana la ka adkaanaya exercise aan sameeyno yiri wuxuu muujinayaa in la ka adkaanayo haye
حتى هداد waxaydan qabsadaan idinma soo gurma karno sida xaalku hadda yahay waxaan goosano oo dowladda midowga goosatay waxaas Mareykan baa nagu soo Mareykanka inaan ka argoosano sidoo uga argoosanaysa qaliijkan ka saaraynaa qaliijka ayaan ka saaraynaa war Mareykan qaliij lagama saaray kale aniga hoosan iska leeyahay ma waa u sideeyay haddana tabtiib uu sheegay wuxuu sheegay maalintaas uu noo sheegay in Ciraaq ay qabsanayso Kuwait Yemen tuxumaada koonfureed ay ku duuleyso tii waqooyiga cadan ya Yementii waqooyiga cadan inay ku duuleyso wuxuu noo sheegay Sacuudiga 72 meelood oo halbowle ah inay ka qarxinayaan marka ay bilaabato dagaalka weerarka oo NATO iyo ku qaadayo Ciraaq oo ku qaadayo 72 meelood halbowlahan qarxinaynaa oo Sacuudiga dadka qarxilaana waa joogan qalabka wax lagu qarxilaana meeshay joogan meel walba diyaar waa gartay markaas idin ka rabaa idinka inaad sameeyaan markaas ya Soomaaliya muxuu ka rabaa marka inay sameeyaan hadalkii uu waday wuxuu yiri meesha Hormuz wariga Hormuz waa taqaanaa Hormuz halkaas waxaan geynaynaa oo yara 4 maraakiibta weyn oo leeyahay cruiserka oo nuclear powered ah xagga labana xagga wax maray waa xiraynaa haddii lagu biyo keenana kuruga samariinaan uga bixinaynaa buu samariino baharahana meeshaan ku qarxinaynaa 4 meesha dhan contaminated ay noqon hay'ad holcada waxa dhan waxa meel la maraya ma aha 10 sano soo socda way xirayaan marikaas iyo radio activity wixii baashi shucaaci baa wuxuu yiri wuxuu noonayaa 200 wax maraya male 10 sano soo socda noole mara kara ma jiro taasna iska xiraynaa oo yiri bahalkan Iran wuxuu jeegan markaa waxay joogeen hashan inta hayay Afghanistan ay ka dagaalamayeen halkaas aan uga soo degaynaa dheen Iran waa qabsanaynaa waxaan ku diraynaa oo la yiraahdo hay jabhad oo Iraniyiin oo Iraq fadhiday mujaahidi khalaq waqtaas mujaahidi khalaq kuwaas aan u dhiibaynaa xukunka Iran tan ugu soo jeesto adinku ma lahaydan dhul aan naga maqan hadda dhulkiina doonto wax alla waxa rabtaana ee weydiiya hubba jabhadii Soomaali galbeed la dhahayo markaas la yiraahdo magac ahaan ay u jirtaa markaas jabhadii waa la kala dirdiray waa kala tirtay meelay ku kala firtaan nare maaragtay markaas hadda dib ha loogu yeero kulligood ha loo yeero hubkeeda iyo waxeeda dhan ana bixinaya ninkan ha loo dhiibo mar kale oo furta ugu fiican adoo ku sheegay jabhadaha loo dhiibo yiri markaas waa mar kale waa yaab kale waa yaabkii labaad waa lagu soo galay waa lagu soo galay okay maxaa u tagayo ninkii generaalkii admiraalkii wuxuu waday warqad oo Brezhnev soo saaray oo wada Brezhnev waa maqli jirtana madaxweynihii Soviet Union marka wuxuu yiri wuxuu u macneeyay maxamed wuxuu okay wuu aqbalay orada ku aqbalay anagu orada ku aqbalay dhulkiina doonta waa soo dhaweydeen soo dhaweey kome sidee si la yaab la soo dhaweyn anagu kulay baa soo dhaweey maalin labaad uu yeeray waxa siyaada markii uu ninkii la kulmay kadib markii uu ninkii tagay ayuu yeeray
isagoo sabantar la ag fadhiya noo tegi wuxuu yidhi haddee hawshii ruushka kuwa igmaday hadda ku dhaqaaq buu yidhi ku dhaqaaq wanina ruush waxay adigu haddeer hawl ma ii dhiibaysaa aan idhi waa kuu dhiibayaa wuxuu yidhi waa midii uu ninku sheegay jabhaddii aniguna haddana odayaalkoodii la hadlayaa adiguna aruuri haddeer aruuri meel qorshayso haye hawshaas madaxa la gal waa maxay sababta marka adiga jabhadda lagugu dhiibay marka ruushkuna uu leeyahay wuxuu yidhi adiga ninka xaggeed isku barateen uu yidhi kiya u sheegay cali samantar u sheegay war anigu ma baranayo ninku wuxuu yaqiina waxaan soo bartay adigu maxaa soo baratay markaas guarilyadaan soo bartay midaan oo dagaalka jabhadaha iyo sirdoonka inta waxa kale inta kale ama ogaada ama ogaan laakiin taasaa ku jirtaan waxay aan soo baran marka maxaa igu sheegi weyse anigu maanaa kaaga sheekay kara ninaan waa naloo dhexeeyaa baan idhi kanaan ku laadayaa ma ogta markii asagaa waxa dhan sheegay markaasuu saasuu dhugtay rasawada maxaa waayo waxaa la sheegay maya taliya jaalamadaa wayne waa ka xumaa inaadan ogeyne aanaan ku ogeysane ninku waa waxaas la sheegay buu bes haddii hawshaan la gala meeshaan meel qorilow la yihahdo jabhadiyaad gudagashay marka jabhadiyaan gudagalay madaxweynihiina wuxuu kuu sheegay inuu ku taageersan yahay hawshaa qabatid hay maxaad samaysay marka jabhadii baan adiga jabhadii marka meeqa jabhadood wey markaas marka adiga Soomaali iyo Oromay u kala baxaan oo kala saaray Oromada aragtay waxa weeye iyo caruusada kuwa Soomaali sheeganaya ayaa meesha jabhadii Soomaali abow markaas loo baxay waxaas ayaga sheeganaya Oromada miday ahayd Soomaali galbeedna miday ahayd Soomaali maxaa kaloo jabhad jiray maya ayagaas la waay labadaas yacni midan Oromada oo Soomaali galbeed sheeganaysa Soomaali abow sheeganaysa iyo kuwan Soomaalida oo Soomaali galbeed ah labadaas aan u kala saaray kuwan abowga qoryo markay soo yaaceen waa nagu soo buuqeen meel walba ka soo yaaceen yes qoryahan meel xuduudahan dejinaa ayaan dejiyaa cuntada sidaad u qorshaysa marka sideed jabhadaha u qorshaysa deewaanta ku shaqada kuwaas waxaan ugu talagalnay inaan markay yimaado week camal inaan wax yarto toosno ay noqdaan inta qoryoodii rasaastooda siino markaasna ay dhulkan Soomaalida inta ka gudbaan dhulkooda markay galaan ay dadka xabashida ah oo maaragtay ama leh nimankan dhul goostayaalka ah oo iyo kiisada nimanka jooga qoladan dhulkii beeraha qaatay dadka ku shaqaysta hanti goosadka nimankaas ka taqalusaan dhulkeena waxaysta ka xoreysta ka xoreysta laayana mid idin ka carar moogay mid kale marka waxaad siisaan qoryo iyo rasaas aan siinaa yisaad waa inta yar ay soo socdaan inta kale deegaankoodii isticmaalayaan waa rich malab le daldalaan marka imsa qoryaad bixideen acuudu bilaahi dhowr kun aan bixinay oo maaragtay hadda qoryo kala duwan oo adiga nimankaas waxaan idhi inta markaad tagtaan riixa nimanka galbeed u riixa erya waxaad aragtaana dile joojka guba kulli way sameeyeen man yaabalo ilaa iyo maasla inta ka dhaxaysa eber waa dhulkaas waa dhul weyn oo 2,000 kilomitir kuwa saasaan ugu talagalnay kuwa Soomaalida in la tababaro ayaan ugu talagalnay tababar xoog la siiyo 2 iskuul aan furnay meel qorilow la yiraahdo ka furnay midna waxaan ka furnay meel la yiraahdo Agabar oo 50 kilomitir Hargeysa ka shaqeysa named baan ka furnay qorilow xagee ku taalaa Agabar Hargeysa 50 kilomitir ka shaqeysa ay ku taalaa midda kalena xerada kale qorilow halka shabeellada dhexe maya xamar 70 kilomitir u jirta shabeellada dhexe ka tirsan tahay shabeellada dhexe ka tirsan
iyada marka halkaasaan dejinay 1200 waxaan ma aqaanay halkaasaan dejinay tababar xoog lahoo waxay qaateen 8 bilood ah ayaan seenay waxaa joogay jabhadda golaheedii dhexe iyo waxaasoo dhan xamaraan ku tababaraynay jabhaddana xaggaasaan ku madaxdoodana ciidankiina halkan qorilow ku mashquulay imisay kugu qaadatay tababarka iyo diyaarinta jabhaddaas ku dhowaad sano hal sano ayaad amuurtaas waday ayaan waday dowladduna kugu taageeraysay dowladda waxaan rabaa dowladdan ka soo qaadaya maaragtay raashinkooda iyo maxaa kuugu yaab badnaayood samaysay intaad tababarkaas waday ood xasuusataa wax kaloo looma yaabin markaan ciidankaas hawlgelinay oo meel dhexe marayo intaa horta baabuur ku soo qaadaan waxaan ceel berde meesha la yidhaha mataqaan xuduuddaa dhex marta halkaasaan baabuur ku geeyey bakool ka tirsan ewal baan 100 ratiya waxaan ka gaday buuro berte iyo tiyoglo inta udhexaysa heeryadoodii iyo xargahoodii iyo waxooda wataa halkaasaan galabtaas isugu geeyey ciidankii oo awr wataa awrtii oo diyaar ah iyo kuwaanan ciidankii un baabuur ku qaaday baaliya waxay ahaayeen rarkii oo dhan baa awrtaasaa lagu wareejiyey marka saadkii u qaadayaan iyo rasaastii iyo qaadayaan marka yaabka wuxuu ahaa markay meel dhexe marayaana waxaa ka horgeyo nin jaajuusa oo Ethiopiana mise Soomaaliya oo Ethiopiana marka wuxuu yiri goday inta tagu yiri Soomaaliya oo dhan duulaysa meesha martuu yiri ciidan xoog leh oo 4,000 rati wata balaayo sheeg hadda marka waa la weydiiyay xaleesad ku taqaanaa Soomaalida geediga iyo waxa sheegaysa ku kala Soomaalida ma yuri Soomaalida Soomaaliya awrta wuxuu yiri labada dhinac waa ka kabaaleeyaan labada hore iyo gadaalba waa ka kabaaleeyaan laakiin dhinacan Etoobiyaanka Soomaalidan hal dhinac le ka kabaaleysaa feer balaayo alla ku gurid marka rarka kala duwan kabaaleynta kabaalada Soomaaliya iskala holeey marka Soomaaliya iskala kabaalka waa qaan reemiga waa bahalkan usha dheer oo hore iyo gadaal oo de wax walba haya taas horta igu cajiib badnay qabtalka iyo kulli ninkaas horta igu cajiib badnay nin balaayaha oo ahaa Soomaaliya seed ku ogaateen inuu saa u sheegay ninkaas kuwii xabashida wixii raggii laga qabtay iyo wixii oo dhan sheegay markii ciidanku uu tagay 100 rati wataan habeenkii lay guura socdaan maalintiina waa degaan waxay tageen wabiga Shabeelle ku tageen wabiga awalaanare urur baan mid 3 urur aan mid ragaad baan u bixinay ragaad markaad wabiga gaartaan meel ku haboon dega waxaad ku daan gaadmo saas ugu dega ambush gaadmo dega waxaan ogaa markaas waxaa soo boodaya ururkii goday joogay oo militariga Etoobiyaanka halkaas isku soo qaadaya shub inta u tiraadaan markuu idin soo dhex galo goday meeshay degeen hilal laab la yidhaha laab ayay degeen wixii bay dhegeen ururkii oo ganmayaa yimid markuu ku soo dhammaaday meeshii ambushka ayay horena ka xireen wuxuu ku tegey horey block road block hore oo ku tegey jidgooyo kii dambana wixii dib u cararay markiiba waa laga xira gadaal waa la isku waa la baabashay ururkaas waa la jabhadiya baabisay eber marka waxaad leedahay jabhadihii shaqo badan ay qabteen oo fiican labadii kuwii kale waa tageen marka ayagana maxaan siiyey dhulkooda marka qarri jiqooda iyo halkaas inta ka galaan inay xabashada koonfurta iyo bariga u soo reecaan oo maaragtay
tuulooyinka iyo ceelasha iyo degmooyinka banaanka iyo waxaas oo dhan ka soo sifeeya oo ku haran magaalooyinka waaweyn keliya magaalooyinka waaweyn oo leeso qabri daare dhagax buur iyo goday ee lagu soo aruurshay inta kale oo laga soo kacshay kuwii xagga oo agabar ayagana sidaas oo kale baabuuran ku soo qaadnay awalan 100 rati oo kale waxaan meel fogaa awrta laga soo gadaa shashaban iyo bulaala ma maqasho waa maqlay heelasha halkaas ka soo gaday awrta iyo heeryada iyo dhigaha iyo xargahooda iyo jinigooda tuulo la yiraahdo Ararso oo wadada ku taala goday iyo qabri daare dhagax buur oo dhaxaysa iyo jigjiga wadada weyn oo tuulo yar oo ku taalo Ararso la yiraahdo halkaasaan inta maqr casirkii ka soo qaaday baawar ku soo qaaday oo maqribkii Hargeysa mariyay wada bariis la ku dhigay halkaas ay geeyeen tuuladaas ay geeyaan in yar hore u dhaafiyaan dabadina ay soo noqdaan waajibkaas aad siiseen waajibkaas baad siiseen ayaan seenay awrtiina meesha ugu taala kula kulmeen awrtii ku daldasheen meel la yiraahdo ceelo obo oo ka soo horjeeda baabil iyo jigjiga iyo saas harar ceelo obo la yiraahdo halkaasii degeen kaasaan dejinay waa 1500 xasee 300 oo orama waxaan iraadinku hoos u dhaadhaca ilaa iyo buuraha oo maaragtay kuwiina waxaan iraadinkuna halkaas qabta ciidamada Itoobiya oo dhulkan Soomaali galbeed jooga 1 gram ayuu soo imaanin wadadii qaf wadadii harar iyo jidgooyo ku sameeyeen jidgooyo dhuunqabada baa loo baxshay ciidanka jabhadaas dhuunqabada loo baxshay halkaasay ku dhigtay eber wax u yimaaday waay gaajo iyo belo hadda cirna lagama soo balay karay sidaas baa jabhadihii ku howlgeliseen meeshiina ku geyseen markaa qiimayseenna waxaa idin muuqatay inay shaqo fiican idin hayaan maxaa markaas kadib ku dhaqaaqdeen waxaan awal baa markii hore oo jabhada la ii dhiibaya waxaa sida nidaamkuba yahay shabaduhu magaalooyinka iyo waa ka soo eri karaan iyo tuulooyinka iyo laakiin magaalooyinka waaweyn kama saari karaan arba markay magaalooyinka la isugu soo arooriyay nimanka ciidanka ayaa ka saari kara ciidanka markaas hadda ciidanku waa howlgalayo haddii kale hadda nagu yaan jabhadii wareerna la gelin marka ciidankiina diyaar garoowa ka socda diyaar garoowa marka jabhadana diyaar garoow ka socda ciidanku sidoo diyaar awal waaniga technicada ku sheegay si daran ay u diyaarsan yihiin sidaad hawshii u wadeena waxa la gaaray marka waxa la gaaray marka oo imid waxa ay jabhadii halkaas ay waxay geerayaan ciidanka hadda amar hawsha qabtay madaxweynaha ku leedahay Maxamed Siyaad hadda hala diyaariyo ciidanka waxa dhacay laakiin intii aynu ku mashquulsanayn problem ma jira intii aynu ku mashquulsanayn annagu jabhadaha iyo waxyaalaha ayaa xayl salaasa meesha ka baxay mingista qabsaday kacaana ka dhacay wax walbana laayay agluulu leeyay amaan andoom dilay ninkii generaalka dilay oo wixii dhan laayay markii hore wuxuu noqday filo Chinese markuu waxaas qabsanayay marka ruushka iyo Chinese-kuna waagaas dab iyo bensin xalqadii koowaad ee General Maxamed Nuur Galaal iyo dagaaladii 64 ilaa diyaarintii jabhadii
soomaali galbeed iyo soomaali abow ee dagaalkii 77 ka hor intaas ayay noogu eg tahay. waxaa marka insha allah haddii ilaahay yidhaah xalqada labaad ayaa waxay noqon doontaa ciidankii qalabka siday ee Soomaaliya iyo sidii dagaalka uu u galay.